aad baan u oyni jiray markastoon keligay ahay ooyintayda iyo aad u badnay waxaan dhihi jiray intaad isku ceelkii isku celin lahayd iska soo saar haddana markaan ooyintayda arko intaan shaydaanka iska naaroon kaco iyaan weysaysto iyaan laba rakac tukan jiray markaasaan ilaahay bari jiro dhihi jiray ilaa wadaa ii keenay adaana iga bixin kara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. barnaamijka caawa waxaan rabaa inaan kusoo qaadano cudurka kansarka aad taqaaniin cudur inuu yahay cudur dilaa ah cudurkaas qaybo fara badan uu leeyahay jirka meelo badan uga dhaca laakiin maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno qaybta ku dhacda cunaha ee loo yaqaano throat cancerka waxa uu yahay asbaabaha uu ku yimaado waxyaabahaas waxaan rabnaa inaan caawa qaybtan barnaamijkeena Danger uga hadalno iyadoo aan waliba si gaar ah gabar waxaa nala joogta barnaamijka aan ku soo casunnay gabar Soomaaliyeed oo runtii geesiyada oo rabtay inay barnaamijkan dadka uga faa'iideyso maadaama iyada ay ka mid tahay dadkii xanuunkaas uu ku dhacay marka waxaan rabaa inaan barnaamijka aad la soo dhaweysaan walaashay Naciimo Axmed marka ku soo dhawow Naciimo barnaamijkan waxa ii sheegtaa markii kugu horeysay oo cudurkan lagu sheego goorma ahayd ama aad ogaatay inaad qabtid cudurkan waxaa la igu sheegay bishii afraad waxaan isku arkay bishii afraad oo sanadkaana mise sanadkii tagay ka wada 2017kii April yaa la igu sheegay laakiin cabaar buu symptomskiisa hayay dhiig baan ma tagayay markaan almost bil iyo waxaan dhiig ma tagayay 10 beri emergency-gan markasta tagayay 3 jeer baan emergency-ga tagay markii saddexaad bay dhaqtariintii aanu dhiigii ma tagayo waan u tagay waan ku yiri dhiigan baan ma tagayaa waxaan baa iga socda mana garanay meel uu ka imanayo sidii bay marka waxay yiraahdeen gaas baan qabaa oo aan cabaar qabay ilaa 6 sano gaaskii bay u maleynayeen waxay ugu yiraahdeen waxaa lagu sameynayay endoscopy waxay dhahaan oo caloosha bayb lagu gelinayaa oo la soo fiirin inuu yahay esophagus-ka waa baybka cuntada mara marka inteenan saas ku dhihin adiga waxaan calaamado markaad dareemaysay ama dhiig ma tagaysay ama siyaabahaas kala duwan xanuunka lagu qabanayo maadan ogeyn inuu cudurkan yahay waxa isaga qaadatay gaas kugu kacay wax noocaas ah weligay inta African marnuu ka imaaday 2016kii aan ka imaaday dhiigan aan ma tagayna 2016kii buu bilowday dhakhtar oo gaas ka han u tagay dhakhtarkan u tagaba gaas uu badinayo cudurkayga mid walba meesha cuntada marto baa ku dilaacday dhahayeen waana waxa ugu koowaad oo dadka Soomaalidu oo Afrika joogta ay marayaan oo waxa Ingiriis lagu dhahaa misdiagnosis cuduraan ku haynin oo daawooyinkiisa lagu siinayo gaas waan qabay laakiin gaas dadka dhiig ka dhijinaya ma qabin markaan wadankan imaaday February baan wadanka soo galay markaan imaaday yaa dhiigii haddana igu soo noqday markaan dhakhtarka u tagay waxaan ku yiraahday gaas baan leeyahay iyo cudurkan ii keenayay asmana waan lahaa asmagana waxaa keena maadaama neeftayda ay burada kor saarayd waxay ii keentay neef waan u sheegay waxaan ku yiri neeftaasaan leeyahay waxaana leeyahay aan ku yiri gaaskii iyo waxay ugu yiraahdeen kinin gaas buu dhakhtarkii intuu soo siiyay iska kaysoo fasaxay marka wax yaran ka dhaxgalay dhaqaatiirtii gaaska kugu sheegtay waxaad ku soo siiyeen kuuro oo daawooyinka gaaska ahaa ee ku socdo markaad dhakhtarkan u tagaysay waxaad isticmaalaysay daawooyinkii dhakhtarka kale daawooyinkii aan isticmaalayo 20 mg bay ahayd gaaska 4 buu iga dhigay oo 2 waqti ah kii gaaska kugu sheegay kii gaaska igu sheegay 20 mg baan labada waqti liqayay markaan wadankan imaaday aan u sheegay dhakhtarkina wuxuu igu yiraahday 40 baan kaaga dhigaynaa gaas dhiigga inuu istaagana waan fiirinaynaa dhakhtar specialist waan ku diraynaa marka kii halkan markaad timid xataa midkii ugu horeeyay aad u tagtay wuxuu wali ku qiyaasay inuu gaas yahay waxan oo wuxuu ku soo siiyay isagana daawo kale oo dheeraada ama wuxuu badiyay tankii intii aad qaadanaysay daawadii gaaska exactly sidii anoo gaas u malaynaya sidayda aniga naftirkayga yaa gaas u qaatay maadaama uu dhakhtar igu yiri wixii waa gaas isma lahayn yani waxaan gaas baaha because maxaan islahaa maadaama
aad gaas wax aad leedahay amuu yahay oo acidka kugu soo gadoomayo uu meesha dilaacay oo ay esophaguska marka sidii anigana wixii baan aaminsanaa dhakhtarintiina waxaan aniga u sheegun bay soo aaminayeen ayagina ismayna lahayn cudur ka weyn baa gabadhan haya marka sida iyadoo ay tahaan markii saddexaad oon u tagay oon welina lagu baarin oo dhiig iyo waxba laga qaadin dhiigga way qaadaan dhiigga waxba kuma arkaan dhiiggayga kansar lagama fiirinin waxaa laga fiirinaya infection iyo waxyaalaha normalka oo dadka laga fiiriyay ka fiirinaya kumayna arkaynin waxba marka dhakhtarkii markaan u tagay kii arkay emergency markii labaad ay arkay baa aan ugu tagay wuxuu igu yiri dhakhtar specialist maada u tagay mayaan ku yiri markaas igu yiri dhiiggii muu kaa istaagay mayaan ku yiri waa kan sidii baan uma tagayaa raalli ahow buu igu yiri berri cudurka ku hayay wixii si kaa ahaba waan ogaanaynaa okay markaas dhiiggii waa socdaa waxyaabihii kale marka ma joogsadeen mise dhiigga kaliya ahaa waxa calaamadaad isku arkay calaamadaha igu daran oo isku arkay maadaama uu yahay cudurka uu yahay kansar caajis badan baan lahaa daal badan baan lahaa qof active u dhashan lahaa oo on daalin oo maaragtay neefku dheg baan lahaa waxaan lahaayoo kale hinraag badan baan lahaa madax xanuun badan baan lahaa allergy baa isaga kay kici jiray wayabay maadaama kansarka wuxuu la dagaalamayaa jirkaagu la dagaalamayaa difaacaagii baa kacaya markuu difaacaagii kaco kulayl iyo qandhaad dareemaysaa qandhadaasaan dareemi jiray wixii aanoo dareemayo isma lahayn weligay hal maalin bay igu soo dhacday inuu yacni cudurku waxaan uu kansar noqon karo waan xusuustaa wiilaan friends ahaan ku yiri أنا أويني أنا وتجي ديجي مركو يجي استاهي كل أنت على دقاتير تانو تجين أنا وتجينا حنقولي ويلك was friends أنا هن حنقولي إني هو وان عبسنا يعني مركز يقولي محد عبسنا يسا مركز حنقولي الترام حيقول شرين عذر كان وحن ديجي بدن أن متجيو إنه هي كانسر مركو يقولي هذه محاضرين كاسكو لي هذا كان يقول لي يعني وان فكري قفك بن آدم باتهاي على قرن كرا وحق وهيستا لبعضه كويستا ماشي الحنون كنت ريميسا ذلك قرف كاغي قصر كاغي هذا الكاغي عكان درين كعلى تقانا حنونك كوهينا على قرن كرا marka waxa dareentay xanuunkan inuu ka weyn yahay gaas iyo waxan inuu ka weyn yahay dareemay marka waan qiyaasay waxaan siray haduuba gaas hay wuxuu noqon karaa hal qof on la wadaagi karo marka magaalada kaliya ka aqoonay oo wiil walaalkay ahaa baan u yeeray ku yirinayo waan cabsanaya ilin baa iga soo daadatay isku naxay wiil maxaa kugu dhacay waxaan ku yiri cudurkaas aan ka cabsanaya cudurkaas aan ka cabsan kuma hayo wuxuu yiri wuu isa sabay wuu iwaaniyay shaytaanka iska naar buu yiri waxaad cudur aan lahayn ha isugu yeeranay way adiga marka asaas wiilka weydiinaysid ama wiilka marka sheekadaada u sheeganaysid qofku cudurkan ku dhacay hore ma aragtay wiliga never qof ila dhashay mise qof reerkaanaga mise qof jifadayda ah mise qof aan dhigi karo cudurkan waa ku relate gareyn kartaayo yacni waa amaad heritage ku leedahay ma lahayn waxa markaad heritage ku leedahay mogtahay xataa digniin leedahay oo dhigi kartaa okay cudurkan wuu igu dhici karaayo qof reerkaanaga uu ku dhacay malaha dhinaca aabahay dhinaca hooyaday waxyaalaha dhakhtarka kariyaabiyuu ahaa markay weydiiyeen history family history ma leedahay ingiriis waxay ku dhahaan family history ma ku leedahay ugu yiraahdeen mayaan ku yiri so family history ma ku leedahay ugu yiraahdeen ma kulihii baan ku yiri cudurkan qofka ugu horeeyo reerkaanaga ku dhacay aniga waay marka ma dareensaneen isma lahayn dhakhtarkii emergency marka u tagay naftirkooda way igu khalkhaleen oo way yacni way yaabeen waxay yidhaahdeen qoftan family history hadday cudur waxaa ku lahayn waxaad sheegtay ku xiran tahay because dhakhtarka markaad u tagto waxyaalo ku weydiin waxyaalaha mid kamid ah haddaad dhahdo familkayga lahaan jiray waxaas xooga saaray
waxyaalihiina wax kamid ah kuma jirin wax kansara way weydiiyeen wax reerkaana kuma dhicin baan ku yiri sidii anigoo ah habeenkii waan dhakhtarkii la seexiyay subaxii waxaa la igu geliyay beeba la igu dhaadhiciyay ma intaadan dhakhtarka intii uusan hawshaas oo dhan qaban markii dhakhtarka kow uu xanuunka kuu sheegay sax markuu kow ama aad ka shakisay inay waxaan ka weyihiin gaasri kugu dhacay wax noocaas inay ka weyihiin dhakhtarka ma la sheegaraysay cabsida aad ka qabtid inuu cudurkan yahay uma sheegin wiilkii baan u sheegay wuu ila hadlay wuxuu yiri waxa ahaa qalbiga ha gashanin waxa khayrka qalbiga la gashtaa ha gashanin ayaan ku yiri meeshii baan ku hilmaamay oo yacni ma sii wadwadin oo dhakhtar intaan u tago ma dhihin waxaasan ka baqayaa qalbigayga way ka baxday waan iska hilmaamay meeshii baan ku daayay dhaqaatiirtan dambe markaa la kulmaysid markaa waxaad niyadaada ka dhaadhicisay inuu gaasrig yahay أنا وسيدي جاستري وحي وقلبي كبحي وحنا نعيم وحاس والكايس كده وحنا هدو عذر هني هاي أكترين ترى وشيء دونا لي جانا ويكو أكل هاي مركا وكنا قضي إن emergency حدا نكون قضي ليكي أنا متجا هذا بدنا مركز ستحد إن ليكي جنا ما هين ليك يعني هالوقت إيمانه هدان تاجنا ويسكيمن هدان فريو ويمن أنا أنت عوني بويمن أنا وشيفا بيمر بنو سوكي قفع بنكوالا because ماشى نفط وطلعينه كحراضه ماشى نفط نروج مثل كده وحينه قالوا قفع بنكوالا مش منصوم متجي قفع بنكوالا قفعي عن كوالا مركب حور نقضي اسكودو دوات waxaa iga sii cabsiiyay oo walwal igu sii riday cudur uu isku dhadhawaaday taas ahaatee naag dhakhtarada waxaa jirta la ii diray intaan specialist waxba arkin oo emergency-ga tegay ayada naftirkeeda wixii iskumay xirin oo ismay dhihin wixii gabadhan ama kansar yahay ama baalki yahay naag baa iga qaaday x-ray halkaa ka bilaabato ilaa feeraha oo warqad shaqo markaad apply garaysanayso wadankan waxaa jirta medical check up wax la marayo medical check up kii baan maray baaritaan caafimaad x-ray gii baa lay saaray naagtii x-ray gii iga qaaday baa soo wacday naagtii check up iga qaaday waxay ugu tiri miis ku og tahay inuu dhuntaada buro ku taalo kaasaan ku yiri maya kaasay ugu tiri dhakhtar ma leedahay haaban ku yiri please waxay ugu tiri sida dhaqsiyaha badan dhakhtar fiican adiga marka wax barar dhuntaada kama aadan dareemin wax caadiga ka baxsan oo dhan ma aadan ka dareemin dhuntaada may the only thing aan dareemi jiray waxay tahay oo dareenkaygu ahaa marmar baan dantasho korka ah dareemi jiray markaan cunaha taabto qof waxaan ahaa cabaariyo leh oo cabaariyada igu dhimunayay kansarkaygana banaanka uma soo baxsanayna guduhu ku jiray oo thyroidkayga si ahaan buu saas u baxay saan ahaan uma soo bixin thyroid waxaa jirta saa u soo baxa midna marka ballaadh ahaan buu baxay weliba dhinaca bidixda u batay marka waxay ugu tiri dhinaca bidixdu ugu badan yahay dhakhtar raadso hayaan ku yiri waxaan ku yiri ii soo dir natiijadii x-ray-ga way ii soo dirtay dhakhtaradaydii baan u geeyay waxaan ku yiri waxaan baa laygu arkay ayadii naftirkeeda weli ayada wixii aragtay oo buro la sheegay maysi meelan ku sidii waa noocaas marka waxay ugu tiri dhiig bay iga qaaday oo thyroid-ka dhiiggiisa ah normal buu weliba noqdo dhiiggayga normal buu sheegay T4 bay dhahaan iyo T3 waa kan regulate gareeyo hormoonka qofka thyroid-ka labadiiba normal ay hayeen midda ka yaabisa gaalada midaas ay hayd anoo kansarkii qabo wuxuu iigu sii dhuntoo kale dhiiggayga oo T4 iyo T3-ga lagama dareemaynin baaritaankii thyroid-ka laga qaadayo wuxuu sheegay normal inay wax walba meesha caadigeeda marayaan marka maxaa laga garan karaa
the only thing waa physically waa in CT scan la saaraa mise ultrasound la saaraa meeshii mise la saaraa x-ray ka hor hadday sidaa ahaa haddii dhiigayga lagu arki lahaa si fudud baa lagu garan lahaa hadduu hay yahay mise loo yahay way soo saari lahaayeen saasay ku saari waayeen adii alxamdulilah gabadhii may isii waxay ugu tiri ultrasound baa lagu saari hayaan ku iri booking bay ii samaysay waan isaga soo tagay markaan ka maqanahay 3 beri meelahaas yuu dhiigaygii uu saayiday 3 beri markaad maqan tahay dhakhtarkii kugu dambeysay aad dhiig badan haddana xaas dhiigayga uu aad isugu dhawaaday wuuna batay marka waxaan bilaabay markaan dhiiga xinjira aan ka dhax galay xinjira tufaysa mise dhiig caadi oo dhiig caadi meel la dilaaciyo oo hamburkeenayo waxaan dareemayaa markaan dhiigga ma tago waa dhiig guduudan oo qof la qalay marka camal dhiig madow ma aha meel xun kama imanayo waan dareentana waan arkaa adiga ma dareemaysaa marka meeshan cunaha inuu ka imaanayo mise gudaha dareemaysaa inuu ka imaanayo meel uu ka imaanayo dareen ma dareemaysaa first thing waan samaynayo waxaa waan ku fici then matag baan ku daray because wuxuu damci inuu galo meeshii neeftayda meeshu neefteeda markuu geli rabo waan ku fici wuxuu iga sii keeni matag asagii baa marka meesha buuxsaman asagii baa iga iman saanu tufayo ya almost waxaan wadi jiray almost 10 minutes marka alxamdulilah horta wuxuu ilaahay u qoreeyay oo qadar bay rahay waxaan aaday meeshii waxaan aaday emergency adii cudurkii way baareen gaaskii bay geliyeen baybkii bay geliyeen way iga waayeen waxay igu yiraahdeen calooshaad waa nadiif waxay igu yiraahdeen dhuntaada iyo calooshaad waa nadiif sidiiba dhakhtarkii ku kaluu kii buu yiri gabadhan wax ma laha gaas way leedahay gaaskeeda maaha midna dilaaci sidii buu dhakhtarkii iga tagay ku kala la isoo diray specialist oo u qaabilsan feeraha maadaama African mardow ka imaaday waxay yiraahdeen amay gabadha TB leedahay TB lagaga shakinaya TB bay iga shakiyeen way karantiileen meel bay ku xireen karantiina ba ka dhigeen karantiil bay iga dhigeen sankayga xireen aminkiiba candhuuf laga qaaday feeraha waxa la iga saaray CT scan haddana wuxuu soo baxay negative wixii oo dhan waa within a day third thing dhakhtarkii waxaa ii imaaday ninka hadda i qalayba ninka dhakhtarkayga noqon doono yaa ii imaaday igu yiri wax ma isku og tahay markaasaan ku yiri wax sidee markaasuu igu yiri wax medical wax dhunta kaaga yaali waxaad isku og tahay ma jiraan ku yiri oo dhuntaada hadday noqoto iyo waxaan ku yiri weegan hadda aan soo dhaafnay naag iigu tiri x-ray-gaaga waxaan ka arkay thyroid-kaaga inuu weynaaday marka waxay igu tiri dhakhtar aad bas intiibuu asaga iga qaatay markii wuxuu igu yiri CT scan baan ku saaray waan fiirinaynaa wixii dhuntaada ka jiro hayaan ku yiri CT scan isla markii la saaray waxaa la ogaaday inuu thyroid yahay isla markii thyroid-kii bay wuxuu igu yiri thyroid baa lagu arkay dhinaca bidixda u baahan yahay inuu cancer yahay in kalena warka ma hayn marka thyroid-kii weynaaday oo dhinaca bidixda u batay laakiin ma naqaan inuu cancer yahay inuu benign yahay caadi yahay oo baro caadi iska tahay oo asigu iska weynaaday aniga CT scan-ka lagu arkay CT scan-ka lagu arkay hayaan ku yiri subaxii dambe maalinkii igamay qaadin waqtiga gabalka dhacay dhakhtarka inta jiifay subaxii bay imaadeen cunayba waxa la iga doctoray irbado dhacaan bay ka qaadeen isla casiradiiba dhakhtarkii socdaa uu yimaad wuxuu yiri cudurka kansarka la dhahay baa laga helay cudur type uu kala leeyahay throat cancer waaye uu yiri thyroid waaye thyroid-kana wuxuu kala leeyahay uu yiri names afar bay u kala baxaan labaan hadda si fiican xusuustaa oo aad u ah common oo aad loo yaqaano oo dadkana aad ugu dhaco
labada aadka dadku ugu dhaca mid kamid ah marka aad qabtaay aad qabtaa buu igu yiri waa markii isla markii uu qaaday baaritaankii ugu dambeeyay markaas uu soo ogaaday uu soo laabtay isla the same day macnaha maya the next day way maalinta kale ku xigtay baaritaankii next day ha wii ma wuxuu yiri kansarkaas laga helay casiradeedu markii ay sheegay subaxii baa laga qaaday dhacaankii casiradeena way natiijadu way soo baxday waxay u yiraahdeen kansarkaasan ka helay kansarka magaciisana waa papillary thyroid cancer ma aha midka maaragtay yani aad u baxo malignant ka ah benign ma aha laakiin malignant ma aha oo malignancy badan ma la metastasis ma aad uma faafo time buu qaataa inuu faafo time ku qaadanaysaa faafo stage 1 waayu ugu yiri waxayna u egtahay inay cabaar u jirkaaga ku jiray ku jiray marka wuxuu dhahay ilaa uu haystaa dhinaca bidixda laakiin inta tissue iyo inta wuxuu ugu yiri qumanka ah iyo qunka wuxuu gaaray ma garan karno markaan qalayna waan karnaa extend ku gaaray okay way meeshaas markay marayso adiga waa markii kugu horeysay xanuunkan horeyna maraa waxaa sheegtay inaad ka naxday ama aad dareentay inay waxaan ka badan yihiin gastric inuu ka badan yahay calaamadaha aad isku aragtay oo maraad u malaysay wiilna la sheergaraysay wiilku wuxuu ku yiri waxaas calooshaada ka saar صح hadda dhakhtarkii ku hortaagan oo ku sheegayo cudurkan laga helay inuu yahay cancer thyroid cancer in laga helay dareenkaaga soo aha markaa aad baan uga naxay waxyaalaha ugu horeeyo aad uga naxay waxay ahayd wadankii oo ku cusubahay oo markaa la bil baan joogaa waxaan imaaday February dhamaadkeedaan imaaday March kali baan joogay bisha afaraad lixdeedina waxaa la leeyahay kansar baad leedahay guri wali ma degin salma yeelanin wadankii qofna kama aqaano qofna walaal iyo tolku malihi qof yaqaan malaha dadkii waxaa walaal iyo dadkan shelter ku jira on shelterka isku jirna walaal iyo qof kale ma oqonin anoo wadankii ku cusub wixii oo dhan ku cusub marka waxay ugu noqotay aad baan uga naxay dareenkayga aad baan uga naxay wax laga naxana way tahay oo waan xusuustaa wiilalan isla joognay shelterka wiil kamid ah ay kor taagnaa oo marka ay yimaaday taasoo dhakhtarkii soo galay markuu ii sheegay waan ooyay waan ka qiirooday haddana ilaahay baan isku xiray wuxuu igu yiri ilaahay intaad ka baqdo wax kasta ilaahay baa kuu keenay laba rakac intaad ooyn leed ugu yiri intaad kacdo weysiisato kac laba kacrood tuko sidii baan sameeyay laba rakacadood waan kacay waan weysiistay laba rakacadood baan tukaday ilaahay baan baryay ilaa wadaad garan waxaad ii qortaada tan ii keenay adaana iga caafin kara adaana ku tala saartaan dhahay alxamdulillah walwal badan dambe ma isku arkin ma sha Allah sidii markaan ahaa dhakhtarintii waxay gashay wuxuu igu yiri dhakhtarkii markii uu ii soo noqday wuxuu igu yiri kansarkaaga aad u faafay waa aad u faafay ultrasound baa la dhiibay saareen ultrasound-ka wuxuu tusay extent uu leeyahay marka wuxuu igu yiri waxay u egtay u dhahay ilaa meesha codkaaga neeftaada meesha codka ka soo baxo voice box kaaga neeftaada meesha ka soo baxdo waa tracheerka iyo wuxuu saameeyay uu igu yiri qumanka ku jira qanjidhada ku jira dhuuntaada dhan iyo wada saameeyay bidixii midigba marka wuxuu igu yiri waa inay waxay dhahaan dhakhtarintu waxay dhahaan total thyroidectomy يعني complete wax kasta laga soo saaray qanjidho dhan thyroidki oo dhan wax kasta laga soo saaray inta meelada uu gaaray oo dhan soo wada saaray marka wuxuu kale uu igu daray wuxuu yiri ma garanayo cudurkaagan tissue bay dhahaan waxyaalaha jirka important ka waa tissue-dadaada inta uu affect gareey ma garanayno taana waxaan ogaan karaa buu igu yiri markaan ku qaro on meeshii kala furo because asaga ka gudboonaa gudihii gadaal lama arki karo marka wuxuu yiri markaan taa wada sameeyo yan ogaanaynaa buudha markaan ku qabo
alxamdulilah qalitaankii wuxuu ahaa 8 hours qalitaanaan galay 8 saacadooda waxaan ku jiray 8 ilaa 5 isku dar waxaan ku jiray almost 13 saacadood. okay way marka intaas oo dhan ay kula kulmayaan ama aad kaliya intaas oo dhan maraysid dadkii kugu hareereysnaayaa markaa kula jooga tahay ehel asxaab qaraabo iyo kula jooga markaa alxamdulilah dad badan baa ii yimaaday qaraabo aan nahay iyo dad isugu xigno waxay iga yimaadeen Mareykan oo laba ruux ahaayeen ilaa kuwa kale dadka tol igu xiga Canada intii joogtay wixii aan isla shelterkii isla joognay wiilal dhalinyaro wiilka saddex wiil baa laba wiil baa aad igu dhinteen ilaahay khayr siiyo ilaahay ajri xasanada ka siiyo muslimkii kalena ilaahay ha wada barkeeyo way ii soo wada duceeyeen because qalitaankii la qalay 13 saacadood ku jira ICU baan sii galay 3 maalin baan kooma ku jiray 3 maalmood aad kooma ku jirtay oo kooma ku jiray because marka qalitaanka laga soo saaray kadib qalitaanka marka anoo kooma ku jira laga soo saaray koomadii waxaan ku jiray 3 beri ka bacdi baan soo kacay kor soo kacay alxamdulilah markii aan soo kacay hadee qof kala noqday because qof la qalay waxyaalo badan iska bedeleen baan nahay dhuuntana hada qofka bini'aadanka waa meesha uu cunahana waa meesha qofka ka hadlo meesha ka neefsado meesha cuntada ka liqo waxyaalaha ugu koowaad ee ugu dhibaato badneyd waxaa waaye halkaa ka bilaabato ilaa dhuuntoo dhan ilaa labada garbood dareenkayga ma joogin ilaa haddana ma joogo waayo intaan taas ku weydiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhakhtarka markuu intuu ku gelinin camaliyada ama operationka intuusan ku gelin wuu kuu sheegay sida uu kuu qalaayo iyo waxyaabahaas oo dhan wuu kuu tilmaamay somaama inuu qali doono meesha inuu ii sheegeen iyo qaabka qalitaanka noqon doono heerka uu yahay teeda kale wuxuu yiri qalitaankaaga waa qalitaan culus cudurkaaga cudur aad u faafo waaye marka waxaan la kulmi doonana ma garanayo taas marka ku cabsi gelisay adiga cabsi dheeraad ma ku sii gelisay aad baan u cabsaday aad bay ii saameysay laakiin hadii qofka marka ilaahay ku xiranto ilaahay tala saarato wax kasta ilaahay ba ka weyn qofka waa bini'aadan ilaahay baa daawo kugu soo dhiibi kara laakiin ilaahay kun fayakun haduu ilaahay dhihin sax waxa ma noqonayso marka ilaahay baan tala saartay salaad baan tukaday ilaahay baan tala saartay subaxii 9 bay galiyeen ba alxamdulilah waa lagu guuleystay inta uu yani kansarka markuu qalay uu yiri da'daydii iyo kansarkayga intuu la ekaa iyo aad uga xumaaday qof adiga da'dan yar ku jira macnaha kansarka kugu dhacay wuxuu ku leeyahay waa mid ka weyn oo ka culus ka meeshuu iga saameeyay markuu wuxuu yiri waxaan ka baqayaa future-ka bayb inaan ku geliyo oo ka neefsato bayb because wuxuu yiri bahalkan wuxuu saameeyaa wuxuu saameeyay codka iyo neefta cunada mutaabaneed cunada ka taaban wuxuu saameeyay qaybta codka ka soo baxo iyo qaybta neefta marka muu wada jarin meesha neefta waliba uu ku kor baxay muu jarin wuxuu dhahay haddaan la jaro waxay noqon lahayd inaan beeb lagu geliyo codkaana uu ka tegi lahaa marka wuxuu sameeyey uu jaray waxbuu uga soo tegay wuxuu yiri gubitaan iyo daawooyin baan ku dilaynaa sidiibu marka waxaan markaan soo fiicnaado igu yiri choice baan sameeyey maadaama qof adigana aad ahayd qalayo marka da'daada iyo markaan isku fiiriyey cudurkaagii iyo inaad cod la'aan noqoto waxaan noqon lahayd waxaan go'aansaday macnaha inaan qayb u daayo meesha u daayo oon jarin voice box-ka neerfaha wuxuu jaray voice nerve-ka ay lahaan vocal nerve-ka yuu jaray oo bidixda uu la jaray xulaytaa waan safe gareyn kari waayo igu yiri because uu ku dhex baxay marka haddaan ka taga kaa wuxuu yiri cudurkaaga wuu sii faafaya marka kaa waan jaray igu yiri
marka vocal waxaa jirta waxay dhahaan vocal cords vocal cords ka meesha neeftu saa u korsaaran yahay waana laba shay oo saa isu doomara marka waa meesha yar oo dabooleysa markaad rabtid inaad cunada laqdid waxay dabooleysaa qaybta hawada dabooleysa exactly vocal cord ka teen kale waa mid vibration ka keento inuu codkaaga soo baxo ilaahay wuxuu noo sameeyay ma sha Allah soo ilaahay noo sameeyo ilaahay ba ma sha Allah alxamdulillah meeshaas markay furanto waa markuu codka soo baxayo nafsanayso markay xirantana waa maraada hadlayna cuntadaada ay galayso tiiba marka mid baa istaagtay oo shaqeynay baalka flip gareynay labada vocal cords mid bidixda ma shaqeyso hadda aan hadlayo ma shaqeynayo completely marka taas waxay macnaheedu noqonaysaa uu ku leeyahay in hawadii qaybteeda ee ka gasho ma galayso yani neeftada yaraanaysa hin raag baan maadaama labadiba inay dhahaan inay afka kala qaado waa sida afkaagan oo kale waa bishimo kale had markaad kala qaadaad neefsan karta afka neefsan karta soo maaha haddaad isku qabatana marka waa bishintayda kore oo dhaqaaqayn oo tan hoose kaliya dhaqaaqayso kale marka wuxuu igu yiri neeftaada way yaraanaysaa middaa waa uu iiga sii digay haddana markii uu ii wada sheegay wuxuu gudaha ku arkay siduu ii qalay wuxuu ila damacsan yahay oo dhan buu ii sheegay marka wuxuu igu yiri hadda bal muu islahayn inaan codkayga horta soo noqon wuxuu yiri shaki ka qabay codka inuu ku soo noqon wuxuu shaki ka qabay codkayga iyo neeftayda markii la iga bixiyay life support-ka fasting uu ka waswaasanaa oo waliba uu dadkii ila joogo ku yiri gabadhan waxaan gelin gudaha baybabka ma ka soo bixin haday gabadhan wuxuu yiri wuxuu dhahay intaan ka bixiyay neefsan wayso bayban dhuntu soo gelin qalitaan kale oo 3 saac bay gelin qalitaan kale ba ku sigatay oo mar labaad hadda codka ka soo bixi waay neefta ka soo bixi codkii neefta isku xiran yahay marka wuxuu yiri haday neef ka soo bixi wayso gabadhan 3 saacadood dadisha ku jirin haday wuxuu dhahay 45 minutes haday soo noqon weydo meaning inaan qalitaan kale aan geliyo ogaada wuxuu sheegay dadkii meesha joogay hayaa lagu yiri less than 45 waan soo bixin way soo saareen 45 daqiiqo meelahaas ugu yaraan haddaad wuxuu dhahay ay gabadha soo bixi weyda waa anagoo qalitaan labaad ku celinay exactly marka waan galay way soo saareen 30 daqiiqo bacdi baan soo baxay wuxuu dhahay neefteedu iska caadi way dhibaysay aad bay dhibaysay oo xataa seexashada habeenkii aad bay dhibay because dhuuntaydu dhanba bararsanay gudaha ka wada bararay qalitaankii wixii antibiotic iyo waxyaalo la siinay marka alxamdulillah waxaan ku sii jiray 5 beri oo kale waan soo kabsaday waan yara soo socday socodkayga soo noqday markaan 8 beri meelaha ku jiray waa la iga soo saaray way soo fasaxay ugu yiri hadda waad soo fiicnaanaysaa kiniin uu soo qoray kiniinadu uu soo qoray waxaa kamid ah thyroid kiniina iyo vitamin D iyo calcium because thyroid-ka waxaa kor saaran oo gadaal ka jira bahal la dhihi parathyroid-ka wuxuu regulate gareeyaa calcium-ka bini'aadanka marka midiibay inay taabteen baan u malaynayaa maadaama uu bahalkii weynaaday marka calcium-kay hoos buu dhacay wuxuu yiri calcium waa in la siiyaa sidoo aad calcium ay bilaabay alxamdulillah marka daawadii thyroid-ka oo hormoonkiisa kor u soo dhigaysay iyo calcium labadaas waxa lagu yiri joogto u qaaday vitamin D alxamdulillah intii baan qaadanayay waxaa ii plan gareeyay inay la gubo 33 beri daawo radioactive iodine gubitaanka markaan bogto kadibna la isiiyo radiation every maalmoodba mar ah my every day baan marayay gubitaanka maalin walba every day oo saddexaad ku jiray every day baan marayay alxamdulillah 33 beri baan waday oo saddexaad markii laga saaraa
33 radiotherapy aan maray maalinkan saa u bogay waxay ugu dhaheen side effect-kaaga bannaanku hadda kugu soo bixiyay intaan radiation-ka marayay waxyaalaha ugu badan oon ku rafaaday waxaa kamid ah codka iga tegay cod ma lahayn completely because meesha la attack garaynayo waa neeftayda iyo voice box-kayga intaasaa lagaaga qabtay radiation-ka dhinaca bidixda u badnaa waa dhinacii looga soo tagay in yaroo thyroid ah meeshii codkaygu codkayga tegay neeftayda ay dhibaysay qaadashada neefta haa cuntaan cuni kari waayey cunto waan ka go-ay waan xusuustaa dhakhtarada naag nutrition baa laygu xiro dhakhtarada waxay soo siisay caano loogu talagalay dadka maaragtay kansarka qabo oo cuntada cuni karin oo vitamin iyo calcium iyo protein wax leh oo complete ah waa sida maaragtay caanaha proteinka leh caanihii baan qaadanayay 3 waqti cuntadii oo dhan waan ka go-ay xanuun baabiyo dhanna waa la ii dhamaystiray mid wax ii tarta waa la waayay markii dambe baa la ii dhahaan fentanyl patch yaa garabka la siiyay oo aan ku dhajisan jiray oo la soo qoray xanuunka 2 kiniin oo kala nooc oo xanuun baabiyana waa la jiray sifa ma wada tagaya xanuunka taagan yahay laakiin waa wax yar biyaha iyo waxyaalaha liquidka iyo oo yara fardiirka iyo dhuntayda maraysay wax cod la dhihina ma jirin baa codkii iga tegay waaba dhaqankiika telefoonkan ku hadlaa telefoonka markii lasoo wac ma qaban karo dhibaatooyinka ugu koowaad aan la kulmay oo radiation-ku ii keenay second waxaa ku xigay dabeecadaydu bedelmatay macnaha qaybo too much noqday dulqaadkaygu yaraaday waxaa mukrama kuu sheegay dhakhtarka waxyaabaha aad kala kulmaysid radiation-ka markii lagugu bilaabo waxaanaad isku arki doontaa qaabkaan u dhici doonaa radiation-ka waxaanaad mudan doontaa waa kuusii sheegay soma way ii sheegeen oo ninka dhakhtar radiation-ka bixiyaa ii sheegay codka kaa tegi midabkaaga isbedeli timaha kaa daadan wuxuu igu yiri oo kale cuntada ma cuni kartid xanuun badan baad dareemi all side effects-ka oo dhan kuu sheegay jir xanuun badan baad isku arkay caajis badan baad isku arkay dulqaadka kaa yaraan waxaasoo dhan buu ii sheegay wixiina banaanka iigu soo baxeen alxamdulilah aday waxaan ku sigtay xitaa inay bayb caloosha laii geliyo cuntada bayb layga siiyo because weigtkayga hoos u dhacay adi alxamdulilah naagtii dhakhtarada ahayd oo nutritionka ila shaqaysay oo ila dadaashay waxay samaysay inuu yacni weigtkayga dhicin caanaha ii siisay caanahaasoo dhan lagu siiyo lagu yiri mar walba joogto ka dhigo alxamdulilah caanihii baan ku fiicnaaday proteinkayga iyo yacni weigtkayga aada muu dhicin waan ku bogay radiation-kii maalinkii ugu dambeysay radiation-ka sameeyay waxaa lagu yiri 10 beri oo soo socdo waa 10 beri oo ugu dhib badan oo radiation-ka maalmihii ugu dambeeyay maya markaad dhamayso 10 beriga ku xiga yaa 10 beri oo ugu adag ah qofka dulqaadka ka yaraan dabeecadaada isbedeli waxaa kugu daran oo kale xanuun jirka sare kama kici kartid waxaa kugu daran neefta igu dhegaysay because dhuuntaydoo dhan baa barartay codkii meesha cuntada waxaa barartay meeshii neefta meel kasta way barartay marka aanu jilcina daawadayaasha dabeecadaada maxaa marka iska bedelaya ku dhaheen mood swing waa waxay sheegeen dabcan soma mood swing badan inaan qof la hadlo ma rabo inaan dadkii dhex galo ma rabo bulshadii aan iska ilaalinayay dabeecadayga halowday qofkii soo gimaado caro badan aad isku arkaysaa haa ma ku caroon hadduu dhowr jeer qofkii igu soo noqnoqdo waan karaahsan dabeecada aanan lahayn oo badan buu iga soo saaray haa markaan dhakhtarku u sheegana waa normal buu yiri qofka radiation-ka marayo waa inaad qabsataa outing banaanka aad aadaysa xitaa waad karaahsan marka waxyaalahaasoo dhan waan u sheeg wuxuu igu yiri waa normal wax la malaysanayo waxyaalahaas waa mood swings-ka iyo waxyaalaha qofka kansarka qabo uu aad u dhigo waayo
dabeecadda kaa bedelmi adigoo dhan waxaad noqonaysa dulqaadka kaa yaran fikirkaaga badan waxaa badanaya isla hadalkaaga badan cudurkan miyaad ka fiicnaan miyaad ka kici muxuu ku gaarsiin doono waxyaalo badan marka alxamdulilah salaadaan badsaday ilaahay baryadaan badsaday quraan badan baan dhagaysan jiray ilaahay wuu iga yaraa alxamdulilah maasha allah maya si aada ugu adkaysatay kawdhe waxaa ii sheegtaan maxaa marka kugu darnaa waxyaabaha aad la kulantay inta hadda broseskaas kuu socday oo kale maxaa kugu darnaa intii lagugu sheegay kasoo bilaabata qalitaankii markii aad martay waxyaabihii daaweyntii lagugu sameeyo radioactionkanit ama radioactiveka markii lagaa gubaayay waa saa sheegtay waxaa lagu sheegay in timaha kaa daadanayaan waxaa lagu sheegay in midabkaaga isbedeli doono waxyaabahaas oo dhan lagu sheegay maadaama gabar yar tahay oo adduunyada hadda kugu horeysa maxaa dareentay waxaase saameyn kugu yeelan karaa maxaa dareentay dareenkayga horta wuxuu ahaa kow horta qof iimaan leh inaad tahay waay wax kasta waa iimaanka wax la siistana ma laha anoo wixii hataa igu wada dhacaya oo aan ogahay oo la ii wada sheegay digniin iyo horseed bay ii ahayd oo wax aan ogahay ahayd markuu igu dhacana kama yani shoog kama qaadayn waxaa shoog inaan ka qaadin igu beeray because waa wuxuu dhakhtarka igu sheegay oo igu yiri waxan baad la kulmi doontaa markii waxaa la kulmi lagu dhahana waa waxyaalaha aad jirkaaha malaysaha markaad ku aragto jirkaagana adaysa leeyahay waxan waa wixii waxaa ka koobaa xitaa oo dhuuntaydan oo qoortaydan oo kale oo diirkii baa ka dhacay oo hilibkayga kaliya soo baxay dabeecadahaygaas oo isbedelay dadkii oo ii dulqaadan kari waayey dadkii kor taagnaa dad aada iigu rafaado aada ii caawin jiray dulqaadkaygii intuu yaraado markay arkeenay xataa noloshayda ka dhex baxeen because waxay arkeen inaan aada u badeedo qofka hadduu garanayn cudurka muxuu keenayo wuxuu u malaynayaa inaad yacni qofkii aad granted aada u qaadato qofkii ood aada asxaan ugu qabin asxaan ugu qabin laakiin asxaan baan aada ugu qabin intii bin aadana oo i caawisay mise garabisiisay awaal baan ugu hayaa because waa waxyaalaha qofka walaalka lagu garto oo wanaagga ah oo qofku ajir xitaa ka heli karo aad bay ii bedeshay oo marmar waxaan is arki jiray anoo gurigayga dhex fadhiyo iska oynayo oona garanayn waxaan ku oynayo aad baan u oyni jiray mar kastoon keligay ahay ooyintayda iyo aada u badnay waxaan dhihi jiray intaad ciilkii isku celin lahayd iska soo saar haddana markaan ooyintayda arko intaan shaydaanka iska naaroon kaco iyaan weysaysto iyaan laba rakac tukan jiray markaasaan ilaahay bari jiro dhihi jiray ilaa wadaa ii keenay adaana iga bixin karaa maasha allah ilaaha keena cudur walba isagaa saari marka alxamdulilah intaasuu ilaahay iigu nabreeyey maasha allah marka processka marka intaasuu kaaga dhamaaday radiationka markaad ka baxday dhakhtarka wuxuu ku yiri 10 maalmood ugu dambeeya depression iyo mood swing dabeecadaha isbedelada la kulmi doontaa side effect-ga radiationku kuu sharaxay wuxuu noqon doonaa laakiin wixii kasii dambeeyay maxaa kaloo dhacay dhuuntii ma hagaagtay meeshii tubadii uu ka baqayay codka inay wax kaa gaareen iyo neeftii iyo maxaa kaloo soo kordhay waxaa kaloo igu soo kordhay oo kale oona filashay igu ahayn baybkan aada uga baqayay waxay dhahaan tracheostomy aad baan uga baqayay waa tubada la gelinayo tubada dhunta la gelinayo aad baan u baqayay markii ii dhammaatay Shanberi markaan joogay anoo intaan soo baxay meel xafiis oo ballanka lahaa u socdo iyo wiil aan aad isugu fiicanahay oo gurigeyga ku soo socdo anoo banaanka fadhiyo neefsan la arkay anuu labisan oo caadi u labisan oo bixi raba oo haddana hinraagayo banaankayga aan saa ku fadhiyo tan gurigii ka soo baxay stairs-kii aan fadhiyo ugu yiri maxaa kugu dhacay kaasaan ku yiri neefta ay dhibaysan saaka wuxuu yiri
awin heladaadi kasan ku yiri xaquriga ku jirta wuxuu yiri furaha iga waa geedaha la isku buufiyay inhalerska wuu iga qaaday kor buu guriga tagay wuu soo qaaday wuu ii dhiibay wuu igu buufiyey xataa gacanta ma dhaqaajin karin gacmaha gaba dhaqaajin because neeftayda aad u hooseysa waxaa igu yiri dhakhtar ma ku geeya markaasaan ku yiri maye meeshaasaan ballan galayahay meel kale ballan ku lahayd xafiis markaasaan ku yiri xafiiska ay geey gaari ma kugu qaadaa mayaan ku yiri waan socday yaa alla baan ku tagay meeshii waan soo dhamaystay wixii soo noqday waxaan ku yiri ninhow waan ka sii daray marka waxaan ku yiri ninhow dhakhtar maad geyst haddaa waad diiday hadda ma diyaar ma tahay haaba way qaaday taxi buu igu qaaday wuxuu geeyey meesha cancer care Manitoba bedaan cancer care meesha cancer care lagu geeyey cancer care ka geeyey cancer care baligay meesha agent aligay anu neefture markaan u tagayba boqol dhakhtar baa isoo ku imaatay aminkiiba neefta laga sidaayay oxygen lagu xiray layla orday isla markiiba meesha emergency ga ligay emergency markii la geeyay neeftii oxygen baa markaa igu jiray waxay igu yiraahdeen in lagu qalan waayo oo beeb lagu geliyo beebka aan sheegayana waa kaas beebkaasay ku soo geliyeen beebkaas waxaa lagu dhahay 2 saacadood baa theaterka lagu gelin beebkaasaan ku soo gelinayna beebka waxa sababta lagu geliyay ma inay neefta ka soo baxdaa meel codka ka soo baxaa sababta lagu geliyay neefta waay neefta ku dhibaysay markaas inay ka soo baxdo codka waxba saas kama waxay dhaheen codka bugta qofka waxba saa dhibo uma sii haynin dhakhtarka wuxuu islaawayso u soo noqon oo qofka radiationka marayo oo cunahana laga hayo way ku wada dhacdaa sax marka wuxuu neeftaydu aad uga صح النفط مهمة يا عودك neeftayda aad uga baqsanayeen neeftina waaba kana hadan la soo marka waxay ugu dhaheen waad wada bartay meeshaan neeftana waxay ugu dhaheen barar weyn ba ku jira barar gudaha aha keen in neefta xirato inay xirato marka waxay dhaheen bararka waa inaan antibiotic badan ku siinaa dhakhtarka toonbari ku jirtaa qaybkana lagu geliyo marka toonbari isbitaalka hadana dib lagu celiyay dib lagu celiyay emergency gaan galay 2 saacadood baan theaterka ku jiro way iga soo saareen daaweyn badan ay ku siiyeen oo bararka dajiyay kadibna pipe ku geliyeen tubadan isla habeenkiiba waa la geliyay pipe isla habeenkiiba way ku geliyeen emergency ahaan baan ku galay baan hal saac kadib waxaan ku jiray theaterka markii saa lagu geliyay aariyada hawada ka soo baxday hawada ka soo baxday theaterka habeenkiiba ay geliyeen way qaleen waxay geliyeen pipe-kana ay geliyeen waa la iga soo subaxaan oo pipe-ka qaban soo qacay marka qalitaankii koobaad meesha laga qalay ruuxadeeda lagu celiyay hadana qalitaan kale oo tubada la geliyay meesha la qalay wax yar oo ka gaaban ee qalay dilaaciyeen meesha tracheerka ee dilaaciyeen marka waliba aad bay u dilaaciyeen because jirkayga uu jilicsanaa gubitaankii baa jiray balaad noqday oo intii ay ka rabeen ka badan buu dilaacay because hilibka baa israacay xataa way toli kari waayeen because hilibkayga la soo go'ayay marka meel gubatay hadana sii dilaaceen wixii emergency bay marka waxay hadana igu qaadatay 2 bilood inta ka soo kabsatay inaan meeshii hoosteedii inay isqabsato oo ay isqabsato ilaa meel gubin oo la sii dilaacay hadana way sii bukootay infection baa qaaday intii hadana la qabsashadeeda iyo hagaajiskeeda iyo antibiotic badan bay siiyeen aad ila tacaaleen tiibaan hadana ka soo qabsaday alxamdulillah ilaahay baa mahad shukri leh marka marxaladooyinkaas adag baan soo maray ilaahay baa mahad shukri leh daawadii ugu dambeysay hadana la ii bukureeyay anuu beebkii qabo daawadii dhiigayga la qaaday dhiigayga kansarka aad u sareeyay waxay dhahaan thyroglobulin waxaa kansar marker bay ugu aqaanaan qofka kansarka qabo oo thyroid cancer qabo daysa markadii ay ku gartaan markerkaaga waxaa la dhahaa dhiiggaas ay ku garanayaan cabirka dhiiggii thyroglobulin-kayga aad u
markiiba wuxuu codsaday in la siiyo daawadii ugu dambeysay daawadii ugu dambeysay radioactive iodine buu ahaa 3 beri baa ayadana meel laygu karantiilay telefoon haysanin waxba haysanin qolba lay geliyay daawadaas iodine-ka ku socota waxa lagu yiri gooni meel baa laygu xiray hal mar baa lagu siin 3 beri inuu jirkaaga ka dhamaadaan rabaa